waxaan ilaahay iyo islaam iyo soon midna garanayn baa helay saakan oo iska shaqaysanaya wiilka funaanada madow u adeegaya oo barafuuna rabo baa waxaan u soo qabtay barafuunka naawiga iyo naynka oo ay raggu isticmaalaan badanaa iyo brown barafuunada anoo meesha u tataxaya wiilku wuxuu yiri brown kana rabaa brownkii baan baa u galiyay lacagtii dir baan ku yiri lacagtii adigu $1 buu la haray wiilka aro dhahaya wara lacagta hal baa ka dhiman oo isagu leeyahay waa inta ku daawan jiray fiiskayga weey aan kaftan qoslino baa wiilkan waxa ii soo galay koofiyada qaba kaftan buu ila soo galayba hayuu yiri ii waran gacantu saa igu dhiibay oo aan salaanta aan ka qaaday markii baa miyir igu dambeysay qof saaxday amal baan noqday وراديدي كورا اي سيغا داشتana saaxa codkeeda ka dhaxgaliya wuxuu sameeyay ninkii uu soo galay guduhu soo galay alu meeshii markuu salaanta hortay aniga aan gacanta saa u galiyaa ninkaas igu dambeysay uu soo gudbay guduhu soo galay laagtoo meesha ii yaalay oo abal ahaa buubaat wuxuu kaloo qaatay telefoon gabari lahayd oo meesha yaalay iPhone abu charger kala baxay telefoonka wiilal baa isku duubay laamiga geeska kale taagnaayay wiil baa taanka ii soo galay wiil way iga qaatay marka wiilashu waa isgareynayeen telefoonka niclaha akoonka oo meesha saaray bas buu ka tagay labadii barafoon aan ninka u soo saaray uu ka tagayna uu sii qaatay lama amniga horta markii aan la xiriiray fiidooga aan u diray waxa la yiri ninkan wajigiisa wuu qariyay markii tukaamo kale uu dhaco oo saas lagu soo garto oo la xiro markaas baa naga warsugaysaa laakiin ilaa hadda horta waa lagu daba jiraa waxaan ku arki jiray Itoobiya dad inta saa loo taabto qofka markii saa loo taabto miirka dhan intuu ka tago alaabta lagala baxo laakiin faasi tim nolosheeda arko qof intuu islaamay aan noqday ana available waa markii koowaad horta xilli soon bay ahayd xilligan ay la hadlayo 2 saac ka hor buu shilkaasi dhacay hadda fiidooga ay duubiyeen waxa way casarkii waa casarnimo oo markaan buuqiyo waxa dhanka soo dhamaaday tukaanka aan soo galay dhalinyarada Puntland kun dhaqan hal iska ilaaliyo tuugadaas hadda wadankii timid oo uu salaamaya kadib miirka oo dhan baa tagaya hal is ilaaliyo waqtigiina iyo teleefankiina iyo gacantiinaba ka adkaada aad la yiraahdo intaan ku kulmi doona fiidooga la mid waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo